السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada caawiya janaal iyo barnaamijkii aqoon maal maantana hadduu alla raali ka noqdo waxaa idiin soo gudbin doonaa cashirkii sagaalaad ee maadada fiisikiska gaar ahaan cutubka koowaad cashirkeena maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa tusaalaha lixaad ahna tusaalaha labaad kaas uu leeyahay period and frequency in simple harmonic motion kalka iyo rakaadka kaas uu leeyahay socod isku dib dhac fudud tusaalaheena maanta wuxuu noqon doonaa 7 kg mass is hung from the bottom in the vertical spring fastened on overhead beam. The mass is set in vertical oscillation having a period of 2.60 seconds. Find the force constant of the spring. A 7 kg mass is hung from the bottom in the vertical spring. waxaa lagu soo xiray dhamaadka moolo fastened on overhead beam. taasoo ku soo xiran gaanjada kaasoo leeyahay sida gaanjada wiishka oo kale. The mass is set in vertical oscillation. walaxda waxay sameeyay cufku wuxuu sameeyay walhasho kaasoo ah vertical si joog ay u sameeyay kor iyo hoos si uu dhaqaaqayo. periodka kalka walaxdan waxay noqotay 2.60 seconds. haddaba waxaan u baahan yahay waxay tahay inaan soo helno force constant madoorsoomaha moolada kaasoo leedahay madoorsoomaha mooladaasi inaan soo helno. haddaba si aan u soo helno marka madoorsoomaha moolada markood waxaan fiiri doonaa givenka la siiyay. givenka waxaan haysanaa mass cufku waa 7 kg. waxaa kaloo haysanaa period oo ah kalka walaxda waa 2.6 seconds. spring constant ayaa noola diraa k. si aan u soo helno markood waxaan raadi doonaa muxuu yahay xiriir ka dhexeeya mass period spring constant. kadib markaan intaas ogaano waxaan soo proofi doonaa qiimaha ay leedahay k si aan qacdaas ugu soo baxsano. waxaan haysanaa mass oo 7 kg. waxaa kaloo la siiyay period oo 2.6 seconds. 60 adi 0 ay point ka damarto wax macna ma laha. waxaan noola diray k. waxaan raadi doonaa markood muxuu yahay xiriir ka dhexeeya mass period iyo k. xiriir ka dhexeeya wuxuu noqon doonaa period waxay kulmid tahay 2 by radical m loo qaybiyay k. waxa noola diray waxay tahay inaan soo helno k. si aan u soo helno k markood waa inaan dhiraan aan soo baxsanaa k. si aan k u soo helno markood waxaan baabi'inaynaa 2 by oo radical gees bis aan u soo reebin. inta waxaan u qaybinaynaa 2 by inta waxaan u qaybinaynaa 2 by 2 by iyo 2 by isla bixeen waxaan noo saaray t oo loo qaybiyay 2 by waxay kulmid tahay radical m oo loo qaybiyay k. anaga waxa u baahan waxay tahay k waxay ku jirtaa radical si loo baabi'iyo waxaan naqaanaa square root waxa ka soo horjeeda square both sides waxa sameeynaa square inta waxa sameeynaa square. therefore t hadaa square garan waxa noqonaysaa t square. 2 hadii la square garay waxa noqonaysaa 4 by square waxa noqonaysaa by square. square iyo radical waxa noqon doonaa isla bixi doonaan waxaan noo saaray m loo qaybiyay k. saa u soo helna k cross multiple labadaan isku dhufo t square oo ku dhufsan k waxay kulmid tahay 4 by square m. ana waxaan noo diray waxay tahay inaan soo helno k waxa ku dhufsan t square. ku dhufasho waxaan naqaan waxa ku baabi'i karnaa square waxa ku baabi'i karnaa u qaybin inta waxa u qaybinaa t square inta waxa u qaybinaa t square. t square iyo t square waxay noqdeen isla bixeen waxa inoo soo haray k waxay noola mid tahay 4 by square m oo loo qaybiyay t square. simple aan mar la dul marno waxaan dhan givenkeen waxaan la siiyay mass oo 7 kg. period waxaan haysanaa 2.6 seconds. 0 la socod laakiin 0 hadii point hadii 0 uu ka dambeeyo number kale uu ka dambeeyo wax ma soo kornayso waxaan noola dir k. muxuu yahay xiriir ka dhexeeya mass period iyo k. t waxay kulmid tahay 2 by radical m loo qaybiyay k. si aan u soo helno marka k waa inaan baabi'inaa wax walba la socdo. markood waxaan baabi'i doonaa 2 by ku dhufasho waxa lagu baabi'inaa qayb sidaan naqaan equationka dhan walba waa inaan u qaybinaa. inta waxaan u qaybinaa 2 by inta waxaan u qaybinaa 2 by 2 by iyo 2 by isla bixeen inta waxaan noo saaray t loo qaybiyay 2 by waxay kulmid tahay radical m loo qaybiyay k. radical waxa ku baabi'i kartaa square inta waxa saaran square inta waxa saaran square. therefore t hadii square garan waa t square. 2 hadii la square garay waa 4 by hadii la square garan waxa noqonaysaa by square. radical waxa noqonaysaa isla bixeen m loo qaybiyay k. si ay k u helno cross multiple labadaan isku dhufo t square k waxay kulmid tahay 4 by square m. si aan u helno k kaligeed inta waxa u qaybinaa t square inta waxa u qaybinaa t square. t square iyo t square waa isla bixeen waxa noo saaray k ina la mid tahay 4 by square m oo loo qaybiyay t square. halkeen wuxuu noqon doonaa maadaama k aan soo saaranay k waxay noola mid tahay 4 by square m oo loo qaybiyay t square. 4 by square m oo loo qaybiyay t square. by waa naqaan waxay kulmid tahay 3.14
mass waa la siiyo 7 kilogram period waxaan haysanaa 2.6 second si aan u bedelno waxaan haysanaa marka 4 by qiimeed waa 3.14 square mass waxaan haysanaa 7 kilogram period kan wuxuu noqday 2.6 second square markood waxaan sameeynaa 3.14 square gray waxaa ku dhufataa 4 then waxaa ku dhufataa 7 waxaa ku soo bixi doona 276 2.6 da square gray waxaa ku soo bixi doonto 6.76 labadaas hadaa isku qaybino waxaa inoo soo baxayo 50.8 newton per meter 50.8 newton per meter waxaan sameyn karnaa soo buuxino waxay noqonaysaa k qiimaha doorsamaha moolada wuxuu noqon doonaa 41 newton per meter su'aasha weydiinta moona waxay tahay sidee ku imaado newton per meter wuxuu ku imaaday inta waxaan haysanaa kilogram inta waxaan haysanaa second kilogram oo loo qaybiyo second square marar qaar waxaa loo qaataabo in ay noqoto halbeega caalamiga lagu cabiro k oo kilogram per second square directed in newton per meter wuxuu noqonayaa same sababtoo ah newton wuxuu ku mid yahay kilogram meter per second square meter isla baxan kor maxaa ku saaray kilogram per second square meeshaas waxaan ka ogaanaynaa kilogram loo qaybiyo second square in ay isku mid yihiin newton oo loo qaybiyay meter some books waxay u qaataan inuu yahay halbeega lagu cabiro aad baad u mahadsantahay daawashada cashirka aad daawatay haddii aad ku cusub tahay caawiya channel subscribe si dadka dhan ay ugu faa'iideystaan share